السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وهدى إبراهيم وحان ربا إنان سلامتا إسلامك وقدرو هالكان قبلها الصوماليات دمانتود كوة جوغا ودنك دبديسة إيو كوة جوغا ودنك قدهي سبا وحان ربا إنان لقايب صدو وحيار أو كسابشان دورشدا لبدا كون إيو لحية طبانكا دولة الصوماليا maadaama loo baahan yahay in ay gabdhaha Soomaaliyeed ka soo qayb galaan doorashadan ayaan rabaa inaan wax yar uga taabto gabdhaha waa maxay shuruudaha looga baahan yahay qofka kursiga u cararaya inuu buuxiyo marka koobaad qofku waa inuu yahay Soomaali qof muwaadin ah oo Soomaali ah waa inuu qofka yahay talabaad qofka waa in aanan sharcigiisa lagala noqon 5 sano ee la soo dhaafay saddexaad waxay tahay in qofku uu haysto ugu yaraan shahaadada dugsiga sare ama wax u dhigma haddaa tahay qof muwaadin Soomaaliyeed ah oo gabadh Soomaaliyeed ah oo haysata saddexdaa shuruudood kana yareen da'da 25 jirka waxaad xaq u leedahay inaad u cararto kursiga dawladda kuraasta gabdhaha ka maqan waa kuraas aad u badan waa kuraas loo baahan yahay gabdhaha 30% inay ka soo buuxiyaan marka gabadh kasta oo Soomaaliya waxaan kula dardaarmayaa ama kula talinayaa in ay soo buuxiyaan gabdhaha kuraasta maqan haddaba haddii aad tahay gabadh rabta in ay ka qayb qaadato guddiga doorashada waa in ay gabadh kasta la xiriidaa odayaasha beesheeda sidaa daraadeed waxa aad u helaysaa in aad doorashada dadka wax soo dooranaya gabdhahaasayto keenaya inaad ka qayb qaadatiin qaarkiin wax aad iyo aad u muhiim u ah sababtoo ah haddii aadan fadhiin meesha wax lagu qaybsanayo dee cid ku tabaysaa ma jirto waayo meeshii baad ka maqan tahay marka waxaan kula talinayaa gabdhaha inay soo galaan gabdhaha wax soo dooranayana ay gabdha noqdaan intooda badan kuwa kale oo doorashada rabana ay maxay ahayd iyagana meeshii ka muuqdaan haddii qofku meesha uusan joogin waxaa dhacaysa inuu qofkaas xaqiisi uusan helin haddaba si loo helo gabdhaha ay u helaan cod buuxa waxaan kula talinayaa gabdhaha dibadda jooga gabdhaha dalka gudihiisa jooga gabdhaha yaryar oo waxbartay oo waxbarashada leh oo siyaasadda hamigeedana leh in ay ka qayb qaataan hadduu ilaahay idmo doorashadan 2016 waa muhiim inay gabadh kasta oo Soomaaliyeed ay ka qayb qaadato dawladdan hadda la soo dhisi doono oo ay gabdhuhu aad uga muuqdaan sababtoo ah dhibaatada inta ugu badan waxay ku dhacdaa dumarka marka haddii aad doonayso inaad wax ka beddesho arrimaha dumarka la xiriira amaba carruurta iyo dhalinyarada waa in aad ka qayb qaadataa doorkaagana ka qaadataa marka aniga oo idinkaga tagaya maxay ahaydey in aad idinkuna guubaabinaya in aad ka qayb qaadatiin doorashadaas ayaan waxaan idin leeyahay ama idinku guubaabinayaa u hiili gabadhaada iyo gabadheeda u orod kursigaaga صابر يا وينه وانا ساعدة